lawyer cabdiwaaxid cismaan oon ka waraystay dhibaatada ubadka soomaalida haysta gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Ottawa dalka Canada. marka cabdiwaaxid bal wax yar nooga sheeg muxuu ahaa in halgankaaga uu dagaalanka xuquuqda ubadka soomaalida ee North America. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. أرنت dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatadeeda wadanka Canada ma ahan horta mid u gaar ah Canada. meel kasta dhalinyarada Soomaaliyeed joogaan Europe or America or Canada waa iskaga mid yihiin dhibaatada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed haysato. maxaa yeelay waxa keenaya arinta ama waxa ifafaalaha ka mas'uul ah arintaas waa arin waxbarasho. laakiin dadka waxay ku nisbeynayaan arrimo kala duwan. marka dhibaatada caruurta Soomaaliyeed haysato waxaa ka mas'uul ah ko nidaamka wadankan u degsan ayaa ka mas'uul ah. number 2 waxaa ka mas'uul ah waalidiinta. 3 waxaa ka mas'uul ah jaaliyadda ee ka dhashteen dhalinyarada. haddii aan kala qaado arrintaas waxaa yeelay arrintan horta si in la fahmo waa markay cudurka sidiisaba markii la fahmaa la xallin karaa. laakiin haddii aad aqoon u lahayn qofka disease-ka qabo waxaan doonayaa inaan horta ogaado cabdiwaaxid waa maxay waxaad tidhi dhibaatada waad sheegtay sidee bay waxbarashada ugu leedahay raad. waxaan ugu hormaray arrinta waxbarashada aan u taabtay maxaa yeelay arrintan muhiim waa in la wada fahmaan aan jeclaysan lahayn markay maxaa yeelay waa haddii la ogaado inay tahay dhibaatada waxa keenaya inay tahay waxbarasho la'aan ama waxbarasho yari Soomaalida waa laga hortagi karaa arrintan. arrintan ma aan arrin Canada ku bilaabato sideedaba. stage-kan oo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu bilaabaa markay xerooyinka qaxootiga ay ku jiraan. intaan la soo qaadin markay wadan kasta ama Europe ama Canada ama North America sideedaba waxaa lagu yimaadaa 3 hab. habka ugu horeeya waxa waaye hab qaxooti qof asaga ay soo dabiraya wadanka imaanaya asaga isku dhiibaya mataqaanaa badbaadin qaxootiga weydiisana wadankan. mid waxa waaye xerooyinka qaxootiga ee Kenya, Uganda, Sudan, Yemen dad ku sugan ayaa dawladda Canada u tagayso waxay ka soo qaadanaysaa quota in ay ka soo qaadanaysaa oo loo qoondeeyay United Nations ay u qoondeysay tire Canada waxa qaadanaysaa sanadkan 300 400 500 inta ama Mareykanka la yiraahdo 2000 qaadanaysaa. horta hab noocaasna waay oo dadka ayaga ku soo kaxeynaya. tan kale waxa waaye sponsorship. dad ayaa qofkii damaananayo wadanka sidaas oo ku imaanaa marka sidaas oo wadanku soo gala marka kaas waa immigrant kaas asaga choose gareeyay asaga dalbaday inuu wadanka yimaado. waayahay caruurtii markaa dalka yimaadeen dalka markay yimaadeen marka dhibaatada waxa waaye caruurta marka la soo kaxayso dawladda Canada ay soo kaxaysato caruurta da'doodu waa kala duwan tahay. qaar waxa ku jiro 6 jir 7 jir 8 jir 9 jir. halkaan markay yimaadeen marka dhibaatada ugu weyn ee dawladda Canada ama dawladda Mareykanka dadkan la siiyo oo loo ogolaado oo mataqaanaa laga ballan qaado waxay tahay 3 shay. waxaa laga ballan qaadaa shelter guri ee degan, waxaa laga ballan qaadaa caafimaadka iyo waxaa laga ballan qaadaa waxbarasho. dhibka marka halkaas uu ku imaanaa waxbarashada. caruurta wadankan degan waxaa lagu fadhiisiyaa waxbarashada da'da. marka wiil haddii aawadatay mataqaanaa caruurtaada ama ilmahaada haddii 10 jir oo yahay grade 5 uu fadhiisanaa. hadduu yahay 12 jir grade 7 uu tagaa. hadduu yahay 14 jir grade 9 uu tagaa. marka adiga waalid ahaan borta arrintan fiiri wiilkaadu jiro 14 jir ama 13 jir oo xiro qaxooti ku jiro 4 sano oo aan fursad u helin inuu wax barto ama iskuul aad u helin halkaan la keen oo grade 9 la fadhiisiyay. dawladda marka waxa kaliya u ogolaanaysa waxa la yiraahdaa wax ESL English as second language. taa marka waxay keenaysaa yarkii inuu la qabsan karin iskuulka waxbarashadiisa yaraato dadka u dhashay jaaliyadaha kale inay ka wanaagsanaadaan markay nin Yurub ka soo gala ka soo qaxootiyo in Afrika isku mid ma aha.
taa marka waxay keenaysaa yarkii 14 jir ahay inuu iskuulka la qabsan karin marka luqadda kaliya sidaa dadku ula xiriirtay halkaan lagu baraa laakiin mathba lagu baraa geometriga physicski chemistrygi geographigi wixii cid ku faa'iideynaysa arrintaa ma jirto taa marka waxay keenaysaa yarkii iskoolka inuu iska dhex fadhiyo hooyadii oo keligeed ahayd hooyo keli ah badi halkan timaada waddankan oo single mother ahayd maxay u qaban kartaa marka 14 jirka may wax u qabataa 13 jirka may u qabataa 10 jirka oo grade 5 fadhiyo iskuulka shanaad la fadhiisana oo weliga iskool soo dhigin qaaraad arkaysaa qalanka si loo qabto xataa ma yaqaanin markaas waxaa la geliyaa disable ataa la yiraa markay ma qaban karti qalanka waxaa laleeyahay hadduu ilmihii 10 jir yahay qalanna qaban karaynin ama 14 jir yahay oo qalanka qabsan garanaynin maskaxdu wax ka qaba maskaxa hore maayo wax ma soo baran dhowr jeer aan arkaan family badan halkan oo malay waxay leeyihiin mataqaana wiilkayga disable waxaa loogu dhigay markaad u tagtay principalka macallinka wuxuu ku leeyahay qalinka sidaa uu qabana ama sidoo doono uu qabana qalinka he doesn't know how to hold the pen laakiin weliba lama barin sida loo qabsado mana la barin oo iskuul fursad uu ku aado ma helin markay iskuul waxaa waa mataqaana sidaba u saamay jeel bay marka taa marka maxay saameynaysaa yarka marka iskuulka inuu la qabsan waayo okay drop out inuu noqdo marka koow ka baxay iskuulka inuu iskaga tago oo hooyada ku yiraahdo iskuulaan aadaa labo waxay noqonaysaa waxbarashadiisa ay yaraato oo ardayda kale ay ka wanaagsanaada taas murug iyo niyad jab aad u weyn ku abuuraysaa maxaa taa u dheer marka mujtamaciyo kugu cusub dhaqan cusubaad soo dhaxgay waxyaabo badan oo psychological iskugu tagaayo yarkii wuxuu imaanaaba wuxuu u naqanaaba mujtamacu dhex jooga cadow wuxuu bilaabayaa dadka inuu dilo wuxuu bilaabayaa dadka inuu aflagaadee kadib aqoontii waa yarta wuxuu bilaabaa dhacid wuxuu bilaabayaa mandoore inuu iibiyo inuu isticmaalo bilaabaya because the way out there is no any other way out oo jid kale loo tilmaamay oo wanaagsan maba jiro marka taa horta waxbarasho yarida ayaa asaasi ah waalid kastana waxaa rabnaa arrintaa inuu ogaado sideen ku daweyn karaa sidii ninkii hore aan waraystay ee magaciisa xandulle tale wanaagsan buu keenay wuxuu yidhi waa inaa meel gaara loo sameeya carruurta lagu ururiyaa oo macallimiin soomaaliya dhakhaatiir soomaaliya dad dhaqankooda yaqaana inay faraha ku qabtaan si ay u soo gaadhsiiyaan heer dugsi sare ama se jaamacadda u diyaar garayaan wallaahi waddankan adigaa timid dowladdan ilaahay hanoo cabiidiyey waxyaabo badan ee ummaddan soomaaliyeed ama dadka muslimka dad fara badan ay wax u qabtaan wax arrintaas inaan weydiisano waa arrin aan aad iyo aad u adagtaa laakiin aniga waxaan ku daaweynaa waxaan bilaabno hadda inaan samayno group home yarka marka iskuulka laga soo eriyo markuu waalidkiisa la joogi waayo xabsiga intii loo diri lahay ha loo diro group home ada muslimiin ha jiraan gurye iibiyeen oo 10 qol ah halkaasaan lagu hayaa halkaasaa gurigii ugu horreeya ayaa North America hadda ka sameeyay xaafadda Rasa and that's the step oo tuwan satellite ku jiro waalidka waqti mu haya waalidka qaarkood waqti mu hayaan caruurta waxay ku sii deynayaan TV-ga waa waalidka saddexaad oo caruurta koriyo TV-ga koriyo anaga waalidka saddexaad u naqaan labada waalid haddii hal waalid joogana waalidka labaad oo guriga jooga waa TV-ga asagoo wax ka baranaya yarka and that's another big mistake that we need to talk about marka arrintan waa arrin systemka aan soo dhaxgalnay abuuray laakiin sideedaba marka waxa la saxaaya anaga ma ahan inaan eedeyno systemka laakiin arrintan waa jirtaa dowladda inay wax ka qabatay u baahan tahay barnaamijyo badan aan u dhigna waxaan dhahnay qofka qaxootiga markuu yimaado preparatory school halgeeyo school hordhace halageeyo halagu soo diyaariyo aniga Soomaaliya waa qabi jirnay markaad aadan kindergartenka sidoo kale waxaa waay intaad aadin waa lagu diyaarinaa high school lagu diyaarinaa oo waxaa lagu diyaarinaa grade 5 oo grade 10 lagu diyaarinaa habkaas inay sameeyaan ayaan dawladda ka codsanaanay taasna aanu arkayno inay tahay xalka kaliya looga bixi karo ardaydan Soomaaliyeed oo waxbarashadooda aad u yar tahay isla markaasna ay galaan dabiliyadan aad u waaweyn waxa kugu soo gabagabeynaya inaad fikrad iga siiso intaad u malaynayso inay jeelka ku jiraan Soomaali Ottawa anu kama hadlaya Edmonton iyo Ontario iyo Alberta iyo British Columbia just Ottawa insaad u malaynaysaa sababaha ugu jiraana maxay tahay sababaha ugu jiraan horta dambiye kala duwan galaan
dambiyada ugu weyn waxaa waaye gang involvement, burcadnimadana maxaa keenaya xaafad kastaba magacay leedahay. rasal ma degantaa gang, rasal gaangaataa, ma degantaa ledberi gaangaataa, ma degantaa xaafadda kaba magacay leedahay oo gang. dhibaatada waxaa waa marka low inkambo xaafadihii marka qofka gaanga marka la dhahay xataa dambi inoo gala maaha. ka mid noqoshada gaanga looma baahno in marka lagu eedeynayo inaad fal dambiyeed aad gashay, looma baahno. marka already you are so target dambi baad ku jirtaa dambi xaafadda haddaad degtid dambigaa ku jirtaa dhalinyaro tahay teenager aad tahay. aad baad u mahadsantahay cabdiwaaxid, aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo. in markii ugu dambeysana ma noqonayso in kaala kulmo ama kaala hadlo caruurta Soomaalida ama Mareykanka ha joogaan ama Canada ha joogaan. waanan ugu faraxsanahay sida aad khibradaada iyo aragtidaada iyo aqoontaada ugu soo gudbisay dadka Soomaalida meel kasta joogaan. sida aad baad mahadsantahay. adiga